Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa tobanka dal ee ugu qaaradda ama tobanka dal ee qaaradda Afrika ugu dhulka weyn. Marka ugu horeyso, channelkina booqo waxaa ku jira waxyaabo aad iyo aad ku anfici doono insha Allah tacaala. Haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar. Number 1 waxaynu gelinaynaa Algeria. Dalka Algeria waa dalka ugu dhulka weyn qaaradda Afrika, waxaana uu ku yaalaa waqooyiga ama waqooyiga bariga Afrika. Waqooyiga Afrika, badka Algeria waxa uu gaarayaa 2.3 kiiloomitir iskuweer, waxa ayna ka kooban tahay 48 gobol. Gobolka Taram Rasset ayaana ugu weyn. Gobolkan wuxuu ka dhul weyn yahay wadamada Jarmalka iyo Syria. Caasimadda wadanka Algeria waxaa loo yaqaanaa Algiers. Dadka ku nool Algeria waxa ay gaarayaan 40 milyan oo qof. Kaalinta labaad, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo wuxuu dhacaa bartamaha Afrika. Waa dalka labaad ee Afrika ugu dhulka weyn. Badkiisu wuxuu gaarayaa 2.3 kiiloomitir iskuweer. Dadka ku dhaqan ama dadka ku nool Dimuqraadiga ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa ay gaarayaan 83 milyan oo qof. Caasimadda wadanka waxaa loo yaqaanaa Kinshasa. Dalka saddexaad, Suudaan. Jamhuuriyadda Suudaan. Dalkan wuxuu uu ahaa wadanka ugu dhulka weyn Afrika ka hor inta aysan go'in Suudaanta Koonfureed. Badka Suudaan wuxuu gaarayaa 1.8 kiiloomitir iskuweer. Caasimadda wadanka waa Khartoum. Dadka ku nool waxa ay gaarayaan 41 milyan oo qof. Kaalinta afraad waa Liibiya. Waxa ay dhacdaa waqooyiga Afrika. Waa dal ka mid ah dalalka ugu dhulka weyn caalamka. Wuxuu badkiisu gaarayaa 1.7 kiiloomitir iskuweer. Caasimadda wadanka Liibiya waa Tripoli. Dadka ku nool waxa ay gaarayaan 6.3 milyan oo qof. Dalka shanaad waa Chad. Jamhuuriyadda Chad waxay dhacdaa bartamaha Afrika. Badka dowladda Chad wuxuu gaarayaa 1.3 kiiloomitir iskuweer. Caasimadda Jamhuuriyadda Chad waxaa loo yaqaanaa N'Djamena. Waxaa dalkan ku nool 14 milyan oo qof. Dalka lixaad waa Niger. Jamhuuriyadda Niger waxay dhacdaa galbeedka Afrika. Waa dowlad xiran, ma lahan wax bad ah. Badka Niger waxa uu gaarayaa 1.2 kiiloomitir iskuweer. Caasimadiisana waa Niamey. Dalka toddobaad waa Angola ee ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Waxa ay dhacdaa koonfur galbeed Afrika. Badkeedu wuxuu gaarayaa 1.2 kiiloomitir iskuweer. Caasimadda wadanka Angola waxaa la yiraahdaa Luanda. Dadka ku nool Angola waxay gaarayaan 29 milyan oo qof. Dalka sideedaad ee Afrika ugu weyn waa Mali. Jamhuuriyadda Mali waa wadan ku yaala galbeedka Afrika. Waa dal xiran, ma lahan wax bad ah. Badkiisu waxa uu gaarayaa 1.24 ama 1.240 oo kiiloomitir iskuweer.
Caasimada wadanka Mali waxaa loo yaqaanaa Bamako. Dadka u dhashay Mali waxay gaarayaan 15 milyan oo qof. Dalka sagaalaad waa South Africa. Jamhuuriyadda Koonfur Afrika waxa uu dhacaa sida ka muuqata magaciisa Koonfurta qaaradda Afrika. Badkiisu wuxuu gaarayaa 1,220 milyan ama 220,000 kiiloomitir². Waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 59 milyan oo qof. Caasimaddu waa Pretoria. Dalka ugu dambeeya ee 10aad waa dalka Mauritania. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania waxa ay dhacdaa waqooyi galbeed Afrika. Magaalo madaxdeedu waxaa loo yaqaanaa Nouakchott. Badkeedu wuxuu gaarayaa 1,370 kiiloomitir². Shacabka Mauritania waxay gaarayaan 4,1 milyan oo qof. Muqdisho, inkastoo aysan halkan ku jirin, wadankeena inkastoo uusan ku jirin, waynu ka xunnahay. Laguma soo darin Soomaaliya, kamana mid aho maadaama Soomaaliya shanteedii ay kala go'go'day. Haddii ay shanta Soomaaliya ay haysan lahayd, waxaynu hubnaa 10kan dal inaynu wax ka cariirsan lahayn. Janalka Som News ayaa ku salaamaya oo ku dhahayo noo share garay commentiga iyo weliba like-tan inoogu dadaal insha Allah.